بسم الله الرحمن الرحيم waxaan barnaamijkan aan ku soo qaadanaynaa maalmo taariikhda islaamka inta la hayo guriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala beedkii sharafta badnaa Kacbatul Musharrafa ay soo gaari waayaan xujaydii ku waajibay xajka sabab jira awgeed sida ogtiin ka warqabtaan sanadkan 1441 hijriga aan ku jirno oo maalmo kooban maalmihii xajka nooga dhiman waxa xayran dhammaan muslimiin aad u fara badan caalam islaami xajkana loo ogolaaday dadka degan mamlakada qayb kamid ah waxaan isdul istaaganaynaa insha Allah ta'ala taariikhda islaamka inta laga hayo in gurigan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu amray in loo soo xajiyo sanadkii mar lana guto tiir kamid ah tiirarka shanta islaamka maalmo ay soo gaari waayeen xujayda caalamka islaami dhibaatooyin iyo culays jir darteed waxaan isdul istaaganaynaa dhageystayaal wax ku saabsan dhismaha gurigan Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku sheegay وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق نبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يولكس إسماعيل مركي قواعد كعبة كرء قادين أي الله سبحانه وتعالى نبي إبراهيم وحكور قلي إن كعبة وللسي وكرء قادي إن ضدك الدون كرن ودواقع ودها ضد وسو حجية قريا وحو نبي الله إبراهيم وديس ربي عدكيس قابا إن عدكيس وسنجارسين كرين dadka adduunka idil Allah subhanahu wa ta'ala ayaa sheegay in laga gaarsiinayo laakiin asaga uu qeeliyo dhawaaqa markaas nabi Ibrahim alayhi salaam dhahdada uu soo xajiyay gurigan Allahna wuxuu leeyahay wa adhin fi an-nas bil hajj yatuka rijala wa ala kulli damir yatina min kulli fajr amiq dadka dad lugeynaya socdo dad gaadiid ku socdo hadda cir iyo dhul iyo badba waa la soo gaaray gurigan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu sharfay waana awwal baytin wud'a lin-nas alladhi bi Bakkah mubarakan وماشان إلهي سبحانه وتعالى وعزة شرف جونسية كسية للكو إذل ساز درادد ماشان لقطة كذا حيودك متى هل صلاة لقطة كذا حيودك متى بقولكم والصلاة وحير وحيزول استاجينا مع الماء جريان عقبت العذر تلوس حجواي إلهي سبحانه وتعالى وشرفين قال الأورنجري قرامطة قال الشيء إن تاريخ الإسلام جوارك وسوق هذا كعبة أيوة آمي سنة إن تاي كعبة حجك يا أعماش اللي بدنا حجر أسود كلا سلامية إنها تهي اعتقادات باطلة وجاهلية اللي قصوا جاري سنة كمقوى صدح بقول تواني تدوذي هجريدة أي وارك سوق هذين ضدك مسلمين تحل جالس حجنا لما أنتود ماشي كبابين لأن أوريجل أبو طاهر القرمطي أو كوحدة سوقامينية أي وحكوبة بعينك يسدد جارية صدق كن أو حاجة لما أنتود لما دقين لما كرفنين meeshooda ay ku noqdeen shuhada qoladaas nafteedu waxa la sheegay inay xadeen xajru asadkii ay qaateen ay geesteen caasimadooda ay ku taala Bahrain nimankan xajru asadka qaatay si ibn Kathir uu sheegayo waxay ahaayeen niman aaminsanaan inay ka arsadaan guriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka muslimiinta ay ku xumeynayaan asalkoodana waxa la sheegay inay ahaayeen shiica waxay u qaateen gurigooda iyo xaafadahooda waxa la sheegay markay qaadayeen in ay saareen ratigii uu dhintay mid labaad ay saareen ilaa 30 rati ku dhawaad ku dhamaadeen markii la soo dhowr sano 20 sano ay haysteen ku dhawaad ilaa 24 sano riwaayadka qaar kood 10 sano in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku riday ciqaab roob la'aan iyo dhibaato marka dambana iska soo celiyeen guriga Ilaahayna ay keeneen taas waxay u daliil u tahay إلهي القرآن كسكو شاقي ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه قفكي جيت جورجن ضمعاء إنه حمان إدباته وجيسته إلهي سبحانه وتعالى وحو الشيء نسينا عذاب كلول وآد وحنو بدن سدح وباء الماشري عذر وفافي وبرجع حلقة جري وصدح بقول كنتني تضبط هجير دعي dad badan u dhamaadeen cudurkaas ku dhaxfaafay gudaha magaalada Makka ibn Kathir ayaa soo guurinaya موت جميع الحجاج dadkii Makka degna dhan ku dhamaaday marka waxa dhacday in sanadkaasi caqabad ay dhacday guriga Ilaahayna xajkii la kamili waay la meestir waay waxa dhacday Iraq iyo مشرق أهل المشرق oo dhan إلى مصر إني هل سنة سوى حج وين مركز تاريخه كوبين الأفر بقولتوني سجال كجريدة ظروف فجر أوجد حلقي بقر كيل أورنجري عادي من عبد العزيز بالله الفاطمي حلقاس أي قصدنا دعضي وحاكل جرى أسباب أمن أفر بقلباتني سجال كي أو ضوضي خلافة دجال ودحي بقرة حلقاسي تاسو سوى إن قري إلهي سبحانه وتعالى لو سو حجي
waxaana meeshaas ay ku aadeen taariikhda 654 iyo 658 marka laga reebay reer ahli xijaaz oo sanadkaasi xajka gutay waxaa kaloo jira ololihii faransiiska alxamlat alfaransiya taasoo dhacday 1213 hijriyada waxaa kaloo jira wabaa qaadim alhindi cudur ka yimid dalka hindiya 1249 kaasoo ku faafay mawaasimtii xajka meesha lagu xajinayay taasoo dad badan u suurtagali waasay in xajkooda gutaan waxaa kaloo jira cudur dhaqso sayi cimilo aad u xun oo qaab daran taasoo 417 hijriyada dhacday magaalada Ciraaq in laga soo xajin waayay gabigeedba taasoo sababtay wabigii Dijla inuu barafoobo oo wabigii biyo laga waayo sidaas daraadeed hadda waxaan maraynaa 1441 hijriyada waxaa faafay cudurka loo yaqaan coronavirus oo adduunyada ku faafa taasoo sababtoo ay tahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala adoomada inuu idbiyo tusaaleeyo in dambiga heer uu gaaray in gurigiisa la soo xajin waayay cudurkan oo faafay oo sabab u noqday in gurigiisa loo soo xajin waayay taasoo la tusaaleynay ummadda inay soo toobad keenaan Ilaahay xaqiisa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام intaas ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkan ku saabsanaa taariikh kooban xiliyadii ay suurtagali waasay in gurigan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu sharfay loo soo wada xajiyo ama la yimaado wabillahi tawfiiq